هذا فرحسنا ما explain قريب كريسة أو فرحسنا وأحمد برهان محمد وإيجالية الصوماليات كسو دوينيان garoonka dayuuradaha ee magaalada Minneapolis kadib markii uu ku soo guuleystay tartankii Quraanka Kariimka ah ee ka dhacay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta. Axmed Burhaan ayaa tartankaasi oo ka soo qayb galeen in ka badan 100 dal waxa uu ka galay kaalinta koowaad waxaana isagoo VOA la hadlayay uu sheegay inay guushiisa dad badan gacan ka geysteen. إلهي سبحانه وتعالى كم هاد علنايا والديتي ومامو بيد الجري صبح يا هبين يو معلكي شيخ عبد الناصر محمد فارح يو معلميته وأبو بكر الصديق يا شيخ حسن أحمد أبو نار وكمدها شيوخ وآدي عاوية أحمد برهان ayaa qoyskiisu waxay Mareykanka yimaadeen isagoo hal sano jira waxa uu barashada Quraanka ka bilaabay dugsiga Quraanka ee masaajidka Abu Bakar Sidiq. أحمد inkastoo uu rumaysnaa inuu kaalin wanaagsan ka gali karo tartanka haddana ma aanu hubin inuu kaalinta koowaad ku soo baxayo. نصيب واي سو مجني سو حالي دونتو سو طبعا مجني نوح حالي دونو واكو كرسونا إنا حالي دونو توب 5 ku soo bixista kaalinta koowaad ee tartanka Quraanka Kariimka ayaa abaalmarin ay wadamada Islaamku aad ugu tartamaan hanashadeeda waxaana tartamayaasha ay muddo dheer isu soo diyaarinayeen sida ay tartankaasi ugu guuleysan lahaayeen. أحمد برهان ayaana muddo 5 bilood u soo alamiiteynayay tartanka Quraanka Dubai. قرآن بدأ مراجعيني شن جزء مالي وبا chance وبا هلو سكول هذا كجرو باص هذا كجرو قرآن كي آخر سنة. أحمد برهان ayaa guushiisa Quraanka waxa uu ku tilmaamay mid u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. يقول كانت أمريكا كلمة يقول وهمها لكن الصومالي ده ما بيجوجان وتاني. guusha Axmed Burhaan ayaa meesha ka saaraysa tuhunka ah in ilmaha Mareykanka ku dhashay amaba ku koray aanay dalkani si wanaagsan Quraanka ugu baran karin. Burhaan Ahmed oo ah aabaha guuleystaha ayaa qaba in Quraanka meel kasta lagu baran karo guusha wiilkiisana ay keentay iskaashiga qoyska iyo macallimiinta dugsiga Quraanka ee uu ka soo baxay. والله أنا كل ودلال ودتك فاهم أنا وفاميلها أنا ودلال دتك كله معناها دكسي ودتك إذا مركب معلميته أنا ويلاد دلال. إمامك مساجدك أبو بكر الصديق الشيخ عبد الرزاق حاشي وكمدها بلشدي أحمد برهان garoonka uga hortagtay ayaa guusha Axmed ku tilmaamay mid u soo hoyatay dhammaanba muslimiinta Mareykanka isla markaana ay muujinayso in jaaliyadda Soomaaliyeed ay gaartay hadafkii ahaa inay soo hoyso guulo sumcad u soo jiida Mareykanka. ardayga darajada gaaray Mareykanka ilaa maanta warbaahinta Mareykanka way ku faanayaan Axmed maadaama ay Axmed ku faanayaan inaan community-geenu aan noqono community Mareykanku ku faanaan ayaan rabnay inaan gaaro maanta waan gaaray waan xaqiijinay waxaan rajaynaynaa in wadanka Mareykanka uu arko wanaagga diinta Islaamka wanaagga dadka muslimiinta ah iyo qiimaha qofka dhalinyarada oo muslimka Mareykanka degan uu leeyahay inuu sanayn qof iska nolosha ka dhacsan caruurteenu ma aha caruurteenu waa carruurta tusaalayaasha noqon kara oo Mareykanka maanta ay ku faantamayaan weey. Axmed Burhaan oo galaya sanadkii ugu dambeeyay waxbarashada dugsiga sare ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu barto cilmiga caafimaadka oo dhakhtar noqdo isla markaana uu noqdo dhakhtar qaari ah oo Quraankan aad u xafidsan sidoo kalena uu tusaale wanaagsan u noqdo dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku koraya. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.